السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسلو هذا صاحبي الجنة كي يدفرن وفوق وقال كنا ما توحن كوينا باب محي باب اب صاحبي الحويا وفهم كان ويان فهم كان مركو قفكم ميلان كل كراي مش أدو تلقى شيء لقى سو حلوله سida هايرمي مركو ساكل وسيو قفكو إنه فهم كاسو صبحه وبحبحيه وسيدكينا صاحبي الآن سولي سيني صدح مقاك سولي سناي وأنا ما يسترني dhisankiisa ayaynu ku daraynaa pop-upka waxaynu ku daraynaa bottomka iyo bottomka labadaa bottom ayaynu ku daraynaa okay aan galno dashboardka markaynu nimaadno saaxiibayaal waxaad tegeysaa marka ugu horeysa plugin add new plugin baad leedahay add new plugin markaad tiraahdo sidan iyo kugu soo baxayaa halkan ayaad ka search garanaysaa pop-up saaxiibayaal kan ayaan qaadanaya pop-up maker kan ayaan qaadanayaa kan ayaa lagu isticmaal badan yahay muddooyinkii ugu dambeeyey laakiin anigu waxaan qaadanayaa kan oo ka labaad ah kaalinta labaad ku jira kan baa flexible ah install baan leeyahay activate baan odhanaya okay halkan waxaa iga soo baxay pop-up maker all pop-up all pop-ups baan odhanaya all pop-ups markaan idhaahdo waxaana waa example opening labaduba inay saadhibin si baa iskaga ahaadaan dad doontan iska delete garaayo waxba tari maayaan adigu waxaad tegeysaa halkaa create new pop-up halkaas magaca halkaas ku qoraysaa magac muuqda ma aha oo dadku arkayaan ama websiteka soo dhex baxaya marka waxaad doontaad ku qoranaysa waxaan ku qorayaa abdalle halkan wuu muuqanayaa magaca halkaa ka soo baxaya magacaa weeyaan hire me-ga weeyaan markaa isagana waxaan ku qoraynaa hire me okay halkan booligan waxaan ku qoraynaa inta iisoo koobi gare fist dabeedna saaxiibayaal waxaan odhanayaa publish markaan idhaahdo haddaan websitekeena tago aan idhaahdo refresh oo aan halkan click siiyo saaxiibayaal waxba ii soo bixi maayaan waxaan u baahannahay inaynu assign garayno pop-upkaynu soo sameynay u assign garayno waxa weeyaan hire me halka haddaan tago aan pop-up istaago waa kaa pop-upkan soo sameynay open pop-up haddaan idhaahdo waa kaa uu soo baxay marka waynu sameynay laakiin umayna assign garayn saynu ugu assign garaynayno waxaan tegaynaa dashboardka ayaan tegaynaa dashboardka markaan tagno waxaan leenahay halkaa aynu joogno ayaan hoos uga tegaynaa hoos markaynu degno all pop-ups baynu joognaa waxaan odhanaynaa triggers add new trigger baan odhanaa add new trigger markaynu idhaahno optionka tigta waan ka qaadayna dabeedna add baynu leenahay add markaynu idhaahno fiilka halkaas ayaan click siinaynaa dabeedna waxaan dooranaa kagu sareeyaa linki exact match halkaa marka uu intaa inoo sameeyo waxaan tegaynaa websitekeena halkan dabeedna waxaan odhanaynaa edit with elementor ayaan odhanaynaa saaxiibayaal kan ayaan bottom kan ayaan click siinayaa waxaan odhanayaa edit bottom dabeedna halkaa maarta waa linkigaa waxaan gelinayaa hash hire me wax space ma laha
intaan markaan halkaa geliyo copy ayaan odhanayaa, waan copy garaysanayaa, deedna waxaan la tegayaa halkan. halkaa saaxiibayaal ay ku qoran tahay labada quotation mark u dhexaysa ayaan ku paste garaynayaa, tan waxaa ka baabi'iyo paste ayaan ku odhanayaa. paste markaan ku idhaahdo add ayaan odhanayaa, add markaan idhaahdo update ayaan odhanayaa, update markaan idhaahdo kanna update ayaan odhanayaa. refresh haddaan idhaahdo website-keena oo aan click siiyo halkan wakaa soo baxay, laakiin ma design garaysna. wuxuu u baahan yahay in sidan loo design gareeyo. kow waxaan sameynaynaa, waxaan tegaynaa plugins ayaan tegaynaa. plugins markaan tagno add new plugin baan leenahay, plugin kale ayaan soo gashanayna. halkan ayaan ka search garaynaynaa contact form baan search garaynaynaa, waa kaa install baan odhanaynaa. activate ayaan odhanayaa, activate markaan idhaahdo aan sitigiisa galo, saaxiibayaal koodhka ayuu ina siinayaa. koodhkaas waa koodh contact form ah, laakiin baanu idhaahno edit wuxuu ina siinayaa. formka uu ina siinayaa waxa weeyaan your name, your email, subject iyo message-kii. laakiin website-kan marka aynu halkaa click siino waxaa ku jira your business name iyo select surface, labadaasaynu ugu daraynaa. labadaa waxaynu ugu daraynaa, halkan ayaynu istaagaynaa, dabeedna kan ayaynu iska duplicate garaysanaynaa. copy then paste then paste. okay waxaan sameynaynaa marka koowaad kan ayaynu waxaan halkaa ku qoraynaa business names ama your business, waa isku mid. business markaan halkaa ku qoro ama business name markaan halkaa ku qoro, halkan waan ka jaraya, intaas ayaan meesha ka saarayaa. dabeedna text box baan kusoo dhufanayaa halkaa, dabeedna waxaan odhanayaa required, fielkan waa required, dabeedna waxaan leeyahay business name baa la gelinaya, business name baa la gelinaya. okay insert tag baan leeyahay, tagga isoo geli, tagga wuu isoo geli. okay kan labaad waxaan leenahay select ayaa la yihahdaa, select service. isagana intan ayaan meesha ka saarayaa. intaa markaan meesha ka saaro waxaan tegayaa drop down menu. markaan tago waa required baan leeyahay, waa surface weeye. baan leeyahay. optionska one option per line, si 3 shay ama 4 shay aad soo hoos dhigto la kala doorto, optionkii doorashadii walba ama linekii walba option buu noqonayaa. sida imika web design haddaan idhaahdo, web design aan hoos u dego kaasi option buu noqday already. digital marketing kaasina option buu, graphic design. okay 3 option bay ku deynaynaa, waxaan leenahay insert tag. okay save ayaan odhanaynaa, intaa save ayaan odhanaynaa. save marka aynu idhaahno refresh markaynu idhaahno waxaan imanaynaa mailbox. saaxiibayaal waa halka emailka lagaga soo dirayo ayaynu configuraynaa. iminka configurayn mayno maadaama aynu local host joogno oo aanu suuragal ahayn in email laynoo soo diro. markaynu online ka dhigno ayaan configuraynaa, laakiin 2 qodob baynu kasii qabanaa. labadaa shay business name iyo service name ayaan waxaan ku daraynaa halkan ayaan ku daraynaa. okay halkaas ayaan istaagayaa, dabeedna hoos ayaan u degayaa. hoos markaan u dego waxaan leeyahay waxaan gelinayaa business name baan ku qoraya halkaa, business
name. Okay, column baan odhanayaa. Column markaan idhaahdo saaxiib waxaan soo copy garaysanayaa intaa business name ilaa bracketka ayaan soo copy garaysanaya. Dadna waxaan leeyahay copy halka ayaan ku paste garaynaya. Business name horteedasaan ku paste garaynaya. haddana hoos ayaan dugaya waxaan leeyahay surface surface colon waxaan soo copy garaysanayaa surfaceka bartaa ayaan ku paste garaynaya. intaa markaan sameeyo saaxiibayaal waxaan sameynayaa waxaan leeyahay save halkan save baan leeyahay. save markaan idhaahdo halkan koodhkan ayaan copy garaysanaya. koodhka markaad saa ugu dhufato wuu kuu copy garaysanaya. copy baan leeyahay save ayaan odhanayaa kana. dabeedna waxaan tegayaa saaxiibayaal pop up makerkaygi all pop ups baan tegayaa. all pop ups markaan tago waxaan ka tegayaa kii aan soo samaystay waxaan leeyahay edit markaan idhaahdo halkan ayaan imanayaa kan ayaan hoos uga digayaa dabeedna koodhka ayaan ku paste garanayaa. dabeedna waxaan leeyahay update. haddaan websitekeena idhaahno refresh markaan websitekeena saa refresh idhaahno haddaan halkan click siino waad aragtaa. Please submit the form for hiring me. Your name, your email, business name, select surface. waa kan websitekeena waxaa ka muuqda in uu intan oo dhan cad tahay. waxaynaan soo dhisan garaynin bahalkan. iminka ayaan soo dhisan garaynana waxaan tegaynaa pop up themes. pop up themes markaan tagno waxaan dooranaynaa waa dhammaantood waa themes laakiin kaas ayaan dooranayaa enterprise blue. edit ayaan odhanayaa. edit markaan idhaahdo waa kan. edit markaan idhaahdo halkaa waxaan tegayaa okay kan ayaan dooranayaa. kuwan oo dhan midkii aad wax ka qabanayso titlekaas oo kale haddaan farta yareed okay update ayaan odhanayaa. update markaan idhaahdo waxaan tegayaa all pop ups markaan tago waxaan dooranayaa cabdalle stop kii aan soo samaystay pop-upkii aan soo samaystay edit baan odhanayaa. edit markaan idhaahdo waxaan odhanayaa hoos ayaan u tegayaa dabeedna display baan tegayaa dabeedna appearance baan tegayaa dabeedna halkan waxaan ka dooranayaa kii aan soo edit gareeyey ama themekii enterprise blue ahaa. then waxaan leeyahay update. iminka saaxiibayaal waa inuu inoo shaqeeyaa oo theme kooban yeeshaa pop-upkeenu. okay haddaan click siiyo iminka baan eegn absolutely bottomka isaga insha allah muuqaalka kale ayaynu ku eegnaa. customize weye muuqaalka yara dheeraaday customizeta ayaa laga hagaajiyaa. intaas ayaan muuqaalka kusoo koobayaa. saaxiib haddii aad channelka cusub tahay subscribe noo saar muuqaalka like garee share garee aad iyo aad baad mahadsantihiin.